magaciisu yahay heshiis soo saar qaybsi oo dhex maray dawladda Puntland iyo shirkadda CCECC. waxaan jeclahay inaan qodobo kooban ka soo qaado guud ahaanna akhriska aad akhristaan buugyarahan idin horyaal ayaa sharaxaya guud ahaan waxa ay ku saabsan tahay isweydaarsiga khayraadka dabiiciga oo Puntland ay ku bedelanayso horumarinta dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha. waxaan jeclahay qodob sharci ah oo bogga saddexaad haddaad eegtaan ku yaal inaan idin akhriyo oo hordhaca heshiiska waxaa 12 Maarso 2017 wada galay dawladda Puntland iyo shirkadda CCECC Ethiopia Construction PLC oo lagu dhisay shuruucda Jamhuuriyadda Shiinaha dadka. waana shirkad ay gebi ahaanba leedahay shirkad kale oo la yiraahdo China Civil Engineering Construction Corporation. iyadoo dhammaan khayraadka ay ka mid yihiin noocyadiisa badan ee ka jira bariga dushiisa iyo hoostiisa, biyaha cariga ama sagxadda badda iyo gebi ahaanba dhulbadeedka dhaqaale ee EEZ-ka loo yaqaan ee Puntland ay leeyihiin hantida dawladda Puntland. iyadoo dawladdu doonayso inay meel mariso horumarin khayraadkeeda shidaal ee dhulka ku cayiman heshiiskan, shirkadduna ay doonayso in ay la falgasho baaritaanka shidaal batrool, horumarintiisa iyo soo saarkiisa dhulka ku cayiman heshiiskan oo ah bariga Nugaal iyo Mudug. iyadoo dawladdu ruqsad u siisay hay'adaha shidaalka iyo macdanta Puntland inay gorgortan iyo fulin la gasho heshiiskan qandaraas hawleedka iyo shuruudaha baayactanka dhex maraya hay'adda iyo shirkadda CCECC. iyadoo shirkad diyaar u tahay inay fuliso waajibaadka heshiiskan ay qandaraas la'aan qabto baaritaanka, horumarinta, soo saarka, kaydinta iyo gaadiidka saliidda ceeriin oo laga helo dhulka heshiiska. qandaraasluhu leeyahay dhammaan qalabkii lacageed ee looga baahnaa iyo farsamadii iyo kartidii xirfadeed ee ay ku qaban lahayd hawlgallada batrool ee ku tilmaaman heshiiskan, iyadoo la kaashan karta shirkad batrool ama mid gaas oo kale haddii ay doonto si ay u fuliso barnaamijyada baaritaanka batrool iyo gaas ee dhulka lagu heshiiyey. haddaba labada daraf waxa ay ku heshiiyeen sida soo socota oo ka kooban 34 qodob heshiiska soo saar qaybsiga oo gaaraya 70 bog. intaas baan ku soo qaadi lahaa oo kaliya tobaneeyo qodob oo aan isleeyahay waa lagu fahmi karaa dulucda heshiiska. tobaneeyada qodob waxaan u dhaafayaa inaydaan idinku akhriteen ama hore u akhrisateen ama aad hadda akhrisan doontaan. waxaan jeclahay inaan idiin bootiyo bogga 10aad, bogga 3 baynu joognay, bogga 10aad. bogga 10aad inta ugu horeyso halka hore ku taal mooyaane halka ka bilaabmaysa heshiiska soo saar qaybsiga Puntland iyo shirkadda CCECC. waa heshiis 2 sano ah kuna saabsan sahmin shidaal. dawladda iyo shirkadda CCECC waxa ay ku kala saxiixdeen heshiiskan sababa 12 Maarso sanadkan. heshiisku wuxuu la mid yahay kii shirkaddii Africa Oil Corporation oo muddo dhowr sano ah ka shaqaynaysay
dooxada Naroor oo aan anigu wakiilka uga ahaa heshiis ilaalinta dhinaca kale. dowladda Puntland waxay ruqsad shidaal baaris siisay shirkadda CCECC Construction PLC oo laga leeyahay dalka Shiinaha, xafiisyana ku leh Itoobiya iyo Djibouti. ruqsadda dowladdu siisay CCECC waa mid ku kooban soodimaha gobollada Mudug iyo Nugaal ee Puntland iyo baaxadda dhulka la samaynayaa oo guud ahaan dhan 22,671 square mile. halkaa marka aynu joogno anigoo ku talagalaya inaad wax ka akhrideen qodobada buugyarahan waxaan u gudbayaa aakhirkii si kooban u eegaynaa taariikhda shidaal baarista Puntland. shidaal ma jira baa su'aal. qiimaha shirkaddani inoo leedahay saanqaadka ay dowladda Puntland iyo dadkeedu ku higsanayaan in ay la soo baxaan nimcada khayraadka dhulka ee ciiddu qarinayso kuna beddeshaan kaabayaal dhaqaale ama horumarinta kaabayaal dhaqaale. waxaanu kaloo milicsan doonaa waxa shirkadda CCECC inoo tari karto istaraatiijiyadda dowladda Puntland, mashaariicda waaweyn ee aan ku kasban karo ansixinta heshiiskan maanta iyo mustaqbalka dhow. intaas haddaan maray waxaan jeclahay inaan u gudubno qaybta ugu dambaysa oo sharaxaadda ah oo ah isdhaafsiga khayraadka dabiiciga ah iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale oo ka bilaabmaysa. waxaan filayaa halkaa inay ku soo saaraan halkan aan ka akhriyaya halkaa kama akhrin karo. waxaan in yar eegaynaa bal taariikhda baaritaanka marka hore. 16 ceel baa laga qoday beriga Puntland 1956 ilaa 1990 halkaasay ka muuqataa, laakiin waan garanayaa inaydan wada arki karin. 7 ceel baa laga qoday badda 74 ilaa 84. saaxaddii ruqsadda loo siiyey shirkadaha waaweyn intii ka horraysay 19 ay ka mid ahaayeen Shell iyo Conoco waa ay ka baxeen oo hadda sharci ahaan dhul kuma haystaan Puntland. 20 sano wax dhaqdhaqaaq ah oo qodis ah lagama samayn Puntland ilaa Africa Oil Company la oran jiray baaray Shabeel 1 iyo Shabeel 2 ee dooxada Naroor tijaabooyin ka sameeyay gobolka Nugaal. waxaan u soo gudbaynaa dowladda Puntland ee Soomaaliya horumarinta ay ka doonayso kaabayaasha dhaqaale inaynu ku bedelano khayraadka dabiiciga ah ee aynu leenahay. gobolka lagama samayn baaritaan ku habboon howlaha batroolka iyo gaaska. waxaase la og yahay in uu leeyahay rajo la mid ah soo saaritaanadii laga helay Yemen oo kale. ceelasha jira ayaa xaqiijiyey in hanaan shaqaynaya oo batrool uu jiro. aqlabiyadda beriga iyo badda Puntland looma haysto shatiyo, ma jirto cid u haysata ilaa hadda. waxayna diyaar u yihiin baaritaan iyo maalgelin si soo saaritaan loo gaaro. sawirkaasi wuxuu ku muujinayaa baaxadda dhulka aynu leenahay iyo badihiisa oo ka khayraad badan ama la filayo inay ka khayraad badan yihiin kuwa dhulka ama la mid yihiin, iyo
laba block oo midna uu yahay dhulka midna uu yahay badda oo is haysta oo halka ku aragtaan oo lugaal mudug waxaan eegaynaa samayska iyo kaydka shidaalka oo la mid ah la yiri wuxuu la mid yahay kan Yemen waxaa la hayaa in samayska dhulka Puntland la mid ahaa kan Yemen 150 ilaa 200 milyan oo sano ka hor intaanan kala durkin gacanka cadmeed oo markii horeeto ay dhici karto boosaaso iyo cadan ama berbere iyo cadan inay haysteen sida cilmiga sayniska dadkii baaray ay leeyihiin samayska dhulka labada dhinac aad buu isugu mid yahay shirkadda saliidda ee Hunt waa shirkad Mareykan oo garanaysaan waxay heshiis kan oo kala la saxiixatay Yemen 1980 eelkii ugu horeeyay waxa la qoday 1984 waxaana laga helay saliid badan Exxon company-ga la yiraahdo Exxon Mobil oo iyaduna shirkad international ah ayaa boqolkiiba 50 kala wareegtay saamigii Hunt oo sanad kadib noqday 500 milyan oo dollarka Mareykanka ah qaab dhuleedka Yemen waxa la qiyaasay in uu kaydkiisu yahay 9 bilyan oo dollar soo saar kooduna markuu ugu fiicnaa 2000 ilaa 2300 wuxuu gaaray 400 oo kun oo fuusto maalintii in la soo saaro mid kalena aan xasuusiyo safiirkii Ingiriiska u fadhiyay Yemen ayaa dhamaadkii qarnigii 19aad waxa uu diray dawladda Ingiriiska fariin uu leeyahay Yemen batrool kuma jiro ee ka quusto haddana inaha ay soo saareen ka sokow 9 bilyan iyo dheeraad baa laga filayaa rajada dhulka Puntland laga qabaa waa la mid hase yeeshee si wanaagsan looma baarin dagaaladii sokeeye dartood ama waxyaabo kale ha ku anaadeen waxaan u soo gudbinaynaa in yar inaan milicsano shirkadda aan ka hadlaynaa waa Tuma CCECC shirkadda CCECC waxa la aasaasay 1979 markii uu oggolaaday golaha qaranka ee Jamhuuriyadda Shiinaha dadka waxay ka mid noqotay hormuudyada qandaraasyada caalamiga iyo iskaashiga dhaqaale ee dalka Shiinaha iyo dawladdiisa tan iyo waagaas CCECC qandaraasyo waxay qandaraasyo ku gashay mashaariicda deeqaha shisheeye مثلا تنزانيا iyo Zambia tareenka u dhaxaya oo la yiraahdo Tazara baaxadda ganacsiga ee CCna waa u sii firay iyada qabatay Tazara railway-gaas samaysay iyadana awoodeedii waa ay sii fiday waxaana gaadhay ilaa in ka badan 50 dal iyo gobollo kamida Aasiya, Afrika, Amerika, Yurub iyo Oceania waxa la isku yiraahdaa dalalka muxuu ahay dalalka ku yaala badweynta Pacifiga shishe oo muxuu ahaa midna waxa weeye dalka Australia aan u naqaan midna waa New Zealand iyo jasiirado badan oo ku xeeran mashaariicda CCECC ee Afrikada bari 3 sano oo la soo dhaafay ka qabtay beenweegayna mashaariic dhismaha garoonka
caalamiga ah ee Boosaaso oo ku kacay 18 milyan dhibic 8 adigu 19 wax yar dhiman Talyaanigu waxay bixiyeen 6 milyan dhibic 3 يعني 6 milyan iyo 300 kun ECC-na waxay bixisay 12 iyo bar milyan oo inaga la inoogu yeeshay deyn mashruuca tareenka isku xidha Itoobiya iyo Djibouti oo dhererkiisu yahay 756 kilomitir kuna kacay 2 bilyan oo dollar dhismaha dekada Dooraale ee Djibouti oo 7 meelood oo cusub oo ay maraakiibtu ku xirtaan laga sameeyay wajiga koowaad ay ku jiraan mid ay maraakiibta roll and roll loo yaqaano roll and roll off ay ku soo xirtaan kuwaas oo guud ahaan dhererkeedu dhayahay 1200 oo mitir mid waliba waxa ay qaadi kartaa maraakiib xamuulkoodu gaaro ilaa 100,000 oo tan waxaana ay guud ahaan ku kaceen 580 milyan oo dollar ECC waxay dhistay dhul warshadeed Hawaasa ayuu ku yaalay xagga Djibouti weeye xagga Itoobiya weeye la filayo in shaqaalahoodu inay ka shaqeeyaan 60,000 oo qof oo ka shaqada markay si buuxda u hirgasho dakhli dhoof oo ilaa 1 bilyan ahna waa laga heli doonaa waxaana ku kacday 250 milyan oo dollar islaafsiga khayraadka la dhaafsado horumarin kaabayaal dhaqaale waa hanaan cusub oo maalgelin loogu helayo baahida horumarineed ee kaabayaasha dhaqaale ee Puntland waxaanan qabnaa in dawladda Puntland marka ay taas ku tiigsatay ay jaha wanaagsan ay u dhaqaaqday waayo isweydiin mayno ayaydii 16aad oo weli qarka ku raacaysa riyo dawaco iyo waraabe iyo jinni ilay inaynu horumarka adduunka la tallaabsan karayno mar haddii aynan u gudbin kaabayaal dhaqaale oo hagaagsan oo isugu jira warshado iyo wadooyin iyo dekado iyo airporto iyo wax la mid ah iyaga abuura dhaqaalaha keena dawladda Puntland waxa ay heshiis soo saar qaybsi siisay shirkadda ECC si ay baaritaan iyo horumarin ugu samayso cadad dul ah blocks aan iraahdo oo bariga Nugaal iyo Mudug ku yaal Puntland waxa ay helaysaa 3 mashruuc waaweyn oo kaabayaal dhaqaale ah dhamaystirka garoonka diyaaradaha ee Boosaaso oo aan malaynayo in wada hadalkiisa socdo garoon diyaaradeed gaalkacayo ay leedahay oo cusub iyo jid isku xidha Eyl iyo Garowe heshiisku wuxuu ku saabsan yahay sida dakhliga ka soo baxa ganacsiga shidaalka ay u qaybsanayaan dawladda Puntland iyo maalgeliyaha ECC garoonka diyaaradaha ee gaalkacayo ee Puntland milicsiga mashruuca garoonka cusbi waa garoon 4D waa garoon sareeya weeye oo si walba u sareeya runway-giisu dhererkiisu yahay 2.5 kilomitir garoonka waxaa loo isticmaali karaa rakaab ahaan iyo gaadiid ganacsi intaba qalabka garoonka waxaa ka mid ah injineernimada wadada garoonka runway-ga xiriirinta meesha dayuuraduhu ka hadaan
ama soo fariistaan iyo halka dayuuradaha la dhigo xaydaanka garoonka halka dayuuradaha laga hago halka cimilada lagala socdo saldhigga NDB ee lagala hadlo dayuuradaha iyo qalabka isgaarsiinta haybinta dhulka terminalka habaynta dhulka terminalka ayaa iyaduna qayb kala ah dhismaha terminalka hawlaha dhulka kuwa garaashka ee dabdamiska stationka dabka iyo dhulka gaadiidka la dhigo iyo ina la mid ah halkaasina sawirkaasi waa garoonkii hore ee magaalada Gaalkacyo oo badbaado la biday in meel kale loo wareejiyo xaaladda hadda jirta darteed sida uu garoonka cusub noqon doonana halkaas ay tan xigta weeye tan xigta ayaa fadlan wareeji hada wareeji waka kaas weeyaan waxa weeye guud ahaan jidka Eyl Garowe ee Puntland haddii aan milicsano horumarinta wadadu waxa ay fure u tahay horumarinta dhaqaalaha waxayna kaalin muhiim ah ka ciyaaraysaa in la gaaro himilooyinka sare loogu qaadayo korriimada dhaqaalaha Puntland ma tartami karto waan ku celiyo taa Puntland ma tartami karto ilaa ay casriyeyso kaabayaasha dhaqaale oo ay gaaraan magaalooyinka xeebaha ku yaala dhismaha jidka Eyl Garowe oo waji ah waxa uu marayaa iyada oo naqshadiisii lagu tala jiro in la dhammaystiro waa la soo arkay waa la soo eegay dhismaha wadda xilli walba la mari karo iyo laamiyeynta intaas ayuu marayaa waxaan isleenahay waxa weeyaan mashaariic macno leh waana mashaariic sii socon karta shirkadda tanina hadday inala joogto waa mid qura oo inala rasmiya inala joogta marka laga reebo tii saaka idin asixiseen barakallahu fiik dekedeena taasina waxay tari doontaa waxtarkeeda ayay yeelan doontaa waxyaabahaas yaryar haddii aynu isu geyno aakhirka waxa suurtooda dadkeenu ismoodaynay oo aynan hadda ahayn inaynu noqono waad mahadsantihiin بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا أكو هذليا مقع قراها الشعب كي بنتلان ما أنت أو أي تاريخ رتهاي دبعتني الدولة بشي تدبعات لبكون إيو تدوي تبكي وحا فرحادي إن قراها وكيل هذا بنتلان إني أسحيان لبه الشيس وين ومدة بنتلان مستقبل كذا يهرمر كذا يدغاله هذا معنوي وفدية أما أوران كرو نرشوا وحتر بدن بو يران دونا إن شاء الله تعالى مركو هرجله لبدا هالشيس وحي كليهين الشيس كي ودحيي شركة دوبي وول iyo dawladda Puntland ay ahaa heshiis ballaarinta dekedda heshiiskaas iyo heshiis kale oo isna ahaa sahaminta shidaalka Puntland oo u dhaxeeyay shirkadda CCECC ee hore u dhistay airportka Boosaaso labada heshiis ay maantay golaha shacabka Puntland ansixiyeen waxaan filayaa waa laba heshiis oo taariikhi ah waa laba heshiis oo ummadda Puntland waxtarkeeda u yeelan doona waa laba heshiis oo wax ka tiri doona kaabayaasha dhaqaalaha
ilaahay idankiisa waxaan rajaynayaa inay Puntland wax u tari doonto ummadeedana ay u faa'iideyn doonto cid walba maanta oo Puntland dal iyo dawlad meel joogaana ay u tahay farxad weeye ay farxad u tahay waxaan filayaa midna waxa weeyaan labadu waa kaabiyaasha dhaqaalaha weeye